iyo mas'uuliyiinta kale iyo bahda warbaahinta maanta oo bishu ay afar ahayd waxaan ka dhacay shirkii soo socday mid ka mid ah sababtii wuxuu soo bilowday 25 bishii hore kadibna waxa ay kowdii bishan maarso ayaa lagu leeyahay kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bishu afar ahayd shirkaas waxay ka dambeeyeen baaqi Prime Minister uu soo saaray nabadeed uu soo saaray ku saabsanaa in wada hadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo hooyay wadahadalladaas labadii wareego hore waxyaabaha laga soo hooyay waxaa kamid ahayd in dhacday 19 February laga heshiiyey guddi loo saaray mudaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sida ogtiin dowladdu waxay qabtay in mudaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xiriira caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkaysteen in la qabto mudaharaad dowladda iyadoo tixgelinaysa wadahadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuray waxay ogolaatay in mudaharaadka la qabto kadibna waxaa loo gudbay xaggee lagu qabanayo qaabkeed wadahadal la galay haddana mudaharaadkii waxa ay dhaheen waxaan annagu dowladdu waxay soo jeedisay goobo fara badan oo amnigeeda la sugi karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkaysteen in aysan diyaar u ahayn inay ku qabtaan mudaharaad meel aan ahayn meesha la yidhaahdo dabjirka haddana mar kale dowladdu arrintaas way fulisay waxaa lagu raacay dabjirka inuu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadii iyo arrimaheedu waa lagu jiraa weli lama soo dhammaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbiyo caawa shirka loo fadhiyo waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 December iyo 16 hadeer Maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu geeyo arrinkaasi sida adagtiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas'uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beedinayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn marka arrintaasi ayada ayaa waqtigaa ku qaadatay ayaguna ku adkaysteen ilaa in la furo xukuumaddana ay Prime Minister hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taalla xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka goyin horena aysan u dhicin in la furo madalihii ka horreeyey tanuna furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daaha faraha badan keenay si kasta waxaa la isugu dayay oo Prime Minister dulqaad oo muujiyey waa dareemi kartaan caawa 8 baan ka fariisana ama 2 saac si loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adugu 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa la isku dayay in laga qanaciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay aysan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor waa la socotaan Prime Minister inuu yiri asagoo la taagan madaxweynaha gobolada qaarkood inuu yiri inay bilaabato inuu jeclaa inuu safar u galay yeeshee bilaabashada doorashada iyo qabadkeedu waa hawl aan xukuumaddu runtii aysan caqabad ku ahayn oo meel kale laga caqabadeynayo kaasna waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ay u yihiin intaa waxaa dheer baaqii Prime Minister ku jeediyey ee wadahadallada ku furmeen weli waa sidiisii gogosha waa fidsan tahay wadahadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin laguma goyn karo wareegyo badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay
in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo wixii wareeg lagu xallin waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsana annagu in wada hadalku sidaa ku xirma waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sideeda siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax hal habeenta la isu yimaado isla habeenkaa la go-aamin karo mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo intii kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabyada furan yihiin wada hadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefa la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan oo weli aan la bislayn la bislayn karo ayaan u baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wada hadalka iyo baaqa bari ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wada hadal ku diirsatay waxaan markaa ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wada hadalka ka muujisa cagajid inay culays soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaad waxa waaye waxaan ku soo celinaynaa wada hadalka iyo baaqa nabadda ee barnaamijka hogaaminayo inuu sidiisii yahay habeen iyo maalin aanu dhafrayno gacmahaynu furan yihiin wax kasta oo danta Soomaaliyeed ku jirtani si wada hadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan ku soo dhaweeyno aad iyo aad u mahadsantihiin